munaasabad ballaaran oo ahayd qalinjabinta dufcadii toddobaad ee ardayda dugsiga sare House Secondary School ee magaalada Buuhoodle ayaa maanta lagu qabtay Buuhoodle. Munaasabadan oo ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay Hotel Abdi Guray. Ugu horeyntii waxaa xafladan qalinjabinta ka hadlay maamulaha dugsiga sare House Secondary School Sheekh Mutar Ahmed Xaaji Faarax. sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle Dr. Cabdishaafi Axmed Cali. iyaguna waxaa hadalada isaga dambeeyay waalidiinta iyo ardayda ka qalin jabinaysay dugsiga sare ee House Secondary School. dafcad aansi aad ugu kalsoonahay aanna isleenahay kaalintooda si mugla ayay u dabooli doonaan. waa 29 arday 12 ka mid waa gabdho 17 waa wiilal. runtii waxay annaga noogu qiimaysan yihiin ama ay noogu tilmaaman yihiin dad ku fiican ardaynimada dee xagga waxbarashada tahay iyo hadday xagga habdhaqanka iyo akhlaaqda ardaynimo ay tahay. waxaan leenahay guul waxbarashaad gaadheen heer baad gaadheen tacliimtiinu bays bay maraysaa dadaalkaas aad bixiseen ka midha keena allana haydin barakeeyo. waxaan soo dhawaynayaa ardaydaas ka qalin jabisay dugsiga sare ee House Secondary School ee magaalada Buuhoodle. waxaan ku soo dhawaynayaa jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Buuhoodle. awalan waxaan hambalyo leeyahay ardayda sanadka dhamaysatay dugsiyada sare ee gobolka Cayn. waxaan leeyahay hambalyo. waxaan kaloo hambalyo u dirayaa waalidiinta hawshaas ka qayb qaatay iyaguna ma taqaanaa hawshaas culayska badan ee barbaarinta ubadka iyo midhihii iyo aqoon-yahankii iyo hogaamiyayaashii mustaqbalka diyaarinayay ayagana hambalyo leeyahay. macallimiinta ku tacabtay intaas ma taqaanaa gaadhay culayska intaa leeg iyaguna iyo hagaajinta iyo waxbarista ardayda u dhabar adeygayna hambalyan iyagana leeyahay. waxaan mar koobaad iyo mar labaad baan hambalyo u dirayaa ardayda ka baxaysa ka qalin jabinaysa House Secondary School. waxaan ku bogaadinayaa ardayda inay si wacan u bartaan ilaa heer jaamacadeed ay si wacan u bartaan oo gaaraan jaamacadda ayna kaga hadhin ardaydu meelaha suuqyada rag way iska daayaan jirinimada dhalinyaradu iska dayso gabdhuhuna ay xaaladaha ardaydu ay kaga baxdo foonfoorka ay kaga hadho ay iska dayso. hadalkayga aan ku bilaabo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ardayda iga qalin jabisay dugsiyada sare ee gobolka Cayn gaar ahaan House Secondary School. waxaan kaloo u mahadcelinayaa macallimiintaydii sida wanaagsan wax ii soo bartay 12 sano dugsi dhexe dugsi hoose mid sare. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaantood maamulkii iyo macallimiintii. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ilaahay wax khayr qaba idinka abaalmariyo dhammaantiin. waxaan kaloo aad iyo aad ugu hambalyaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka qalin jabinaysa sanadkan dugsiga sare gaar ahaan fasalka afraad. Cabdi Khaalid Cabdi Saaq Jaamac Star TV Buuhoodle.